السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن أخيارتها ودا نقل سعطاي ملك صد نقدر جيسانيسان كسر دواذا برنامج كان الراديو مقل. روسي اللي كانوا ويتم بيسي. عدوم بان كان تساري كتكي عاشقني لهاي. جعل كبلان قليو قليو. الله حدوم بان كان تساري كتكي عاشقو لهاي. جعل كبلان قليو قليو قليو. عاوة أنا وحلوة أيا قادة دونا وإذن فردي هالكان سيدا عادي أهدبا أنت وسعودي أولولها عذرك كورونا فيروس وحا أن مرول بأن اسكوديين إنا وريسيا كلا دون ليه لأنه قيبا كميدا دادك قيباها بالشدة إيه صوماليات إيه أقوانت أوله وحا مركاسي إن برامجك لغا هلاي عاوة وحا برامجك مرتينو وآه إسلا مركانا إن برامجك سؤال بدن أن كويدين دونا دل مر إن مركاسنا xubin kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Kristiansaan iyo sidoo kale guddiga caafimaadka dalmar may la socotaa kuma qalayaa walaal si toos ah ayaad stuudiyaha ugu jirtaa dalmar waa ku soo dhaweynana marka ugu hore aniga dhageystayaasha waxaan doonayaa inaad iska bartid aad baad u maasan tahay adiga iyo asxaabtiina maqal radio waxaan kaga madcelinayaa Janiskan Sisen oo isku barano oo waraysiga qaadaysan marka anigu waxa weeye waxaan ahay dad dhalinyarada loo diray 8 dabayaaqadeedii dalka Shiinaha oo ku soo baratay magaalada Peking University ayaan ka baxay magaalada hadda cudurkan ka dilaacay Wuhan waan tagay dhowr jeer oo asxaab jaamacadda dhiganaysay Hubei Medical University ayaan ugu tagay dhowr jeer guud ahaan dalka Shiinaha waa dal aan deganaa 6 sano oo taqaana jaamacada kala gedisan dhalinyarada xilligaas la baranaysay aan ku soo booqday aqoon fiican aan u leeyahay dalka Shiinaha kabacdi anigu waxaan joogaa dhowr iyo 20 sano Norway waxaan ka shaqeeyaa dadka waxaan ka shaqeeyaa dhinaca siyaasadda ku jira waxaa laga soo doortaa golaha deegaanka Kristiansaan waxaan ku jira guddiga caafimaadka oo ah 12 qof oo mas'uulka 110,000 oo qof oo degan degmada Kristiansaan iyo agaarkeeda caafimaadkooda waa tahay maadaama dalmarow aad dhinaca caafimaadka wax badan ka og tahay sida aan ognahay cudurka chronic dabcan wuxuu u saameyn badan uu ku yeeshay dad badan bulshada caalamka marka loo eego gaar ahaan marka loo soo laabto wadanka aad deganahay Norway sidoo kale sidaan ognahay dawladda waxa ay xakamaysay isu socodka iyo isu gudbinta in markaasi cudurka uu faafo iyadoo markaasi qeybaha caafimaadka ay ka qayb qaadanayaan in la joojiyo haddaba si guud markaan u eegno inta badan waraysiyo badan ayaan qaadno dad badan la yeelan dhinaca caafimaadka adigoo soo koobay dhinaca caafimaadka saameynta guud iyo waliba mid gaar ah dalka uu ku leeyahay iyo waxaan doonayaa waliba dhinaca dhaqaalaha ee aad ogtahay walibana aqoon dheer aad u leedahay saameynta dhaqaalaha uu sababay shaqo la'aanta bal soo dhawaaw maxaad nala qaybsanaysaa walaal waxa weeye dhinaca caafimaadka waxa weeye dawladdan aad u dadaashay Norway waxaan ku jiraa wadamada ugu horeeya oo xakamaynta si fiican uga galay dhibkan soo jiitay coronavirus soo jiiday hatta marka loo fiiriyo wadamada dariska ah sida Sweden oo kale aad baan uga horeynaa adoon mutaqaana Italy iyo Spain iyo Mareykanka aan aadin taas waxa keenaya dadkan waxa weeye dalku waa weyn yahay dadka degan waa yari marka space badan baa noo dhaxeeya dadka mutaqaana hal meel wada koonfurta Italy oo kale tusaalaan waxa weeye dadku waxay degan yihiin guryo ciriiriya waa dad mutaqaana Latina oo u bartay inay dhunkadaan markay mutaqaana gacanta iska salaamaan kaliya Talyaanigu waxa weeye dhabanka iska salaamaan macnaha iska dhunkadaan markay salaamayaan marka waxa weeye cudurkan ku faafaa touch ku faafaa istaamashadu ku faafaa mutaqaana candhuufta isku dhawaanshaha mutaqaana dadka mutaqaana jirkooda mutaqaana toos u gaaro ama candhuuf mutaqaana liquid ahaan afka uga galo candhuuf ama ha ahaato ama qaab kale ku gala marka waxa weeye space-kaas weyn aan dadku kala degan yihiin iyo dadkooda maqlaya sababta waxa weeye dadkan waa dad u hoggaansan maamulka dawladda oo amarka la faro waxa weeye waxa moodaa mutaqaana qof guri la degan oo kale idaacadda iyo hay'adaha caafimaadku amarka bixiyaan si toos ah loo qaataa marka dadkeena Soomaalida waxay hadda ka cabaadayaan bariyahan qabsaday waxa weeye dadka ajnabiga oo waddanka ugu badan oo cudurkan saameeyay Soomaalida ugu badan waxa weeye luqadii aan si fiican loo fahmaynin labo
khatarta cudurkan leeyahay oo aan si fiican Soomaali u baraarugsanin saddex deegaanka deganayo ciriiri ah oo dadku mataqaanaa ay familada badan ay 5 6 7 10 qof ay gurigooda degan tahay oo hal mar isku faafinayo iyo deegaanadii mataqaanaa laga dhaxeeyay si makhaayadihii oo kale iyo mataqaanaa belis ku tagay hoos laga soo xirtay oo Turkiga iyo dibnadii iyo mataqaanaa fasaxas laga faa'iideystay halkaas mataqaanaa dadkii ay ku baabeen cudur ku qaadeen taas waa dhinaca caafimaadka marka waxaan mataqaanaa marlabaad ka codsanayaa anoo chance ka faa'iideysanaya dadka maqlayo oo Soomaalida inay arrintan si taxaddar weyn ay uga qaataan oo hataa 2 mitir 3 mitir laga fogaado qof kasta ka fogaado qof kale dhinaca caafimaadka marka soo noqdo arrintan dhaqaalaha waxa weeye caalamku wax ku dhacay dabar jab weyn ay u soo jiidaya cudurkan dhaqaalaha adduunka waxaan u muuqataa in isbedel weyn oo dhinaca dhaqaalaha uu dhici doono sanaha soo socda maalmaha soo socda sababta waxa weeye uu bilaabmay dhaqaalaha wuxuu maraya hadda shaqalaanta waxay maraysaa Norway salaanta soo qaato 1930 baan taaganay hadda caawa 1930 macnaha shaqalaanta xilliga jirtay iyo maanta waa isku mid just imagine that 412 oo qof baa hadda waxay iska xaadiriyeen naaf oo shaqo raadisa 80 ilaa 90 oo dhalinyaro ah oo 20 sano ka yar ayaa banaan ku soo dhacday marka shaqooyinka Soomaalidu ay hadda haystaan oo aan Norwegianku ay haysanin waxay noqon doontaa inay ka riixdaan Norwegianku hadda ka faana shaqooyinkaas sida rayn howlo kale dukaamada laga shaqeeyo kale iyo shaqooyinkan manualka taxida hata iyo transportka laga shaqeeyo hadda Soomaalidu ku badan tahay waxa ku soo jabi doona Norwegian shaqalaan ku dhacday oo hadda shaqadaas hadda aan xiiseynaynin marka waxay noqon doontaa arrin culus oo leys weyn oo soo saayida iyo isbeddelka dhinaca siyaasadda hata way soo galaysaa sababta waxa weeye waddankan Shiinaha oo hadda uu ka soo faafay viruskan uu ka yimid waxa weeye waddanka labaad oo dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ugu saameynta badan buu ahaa marka Mareykanka laga soo kaco hadda waxa weeye waxay u muuqataa inuu number 1 ka qaaday Mareykanka oo asoo Mareykanka tabcaan yahay oo mataqaanaa siyaasadiisii mataqaanaa dhinaca arrimaha dibadda iyo caalamka oo kulaha uu wareegay dhinaca Shiinaha marka Shiinaha hadda waxay noqdeen meesha kaliya ah oo xakameynaysa cudurkan mataqaanaa meel uga soo hartay iyo iyadoo gacan ka geysanaysa Yurub si mataqaanaa badbaadin lahayd marka isbeddelka dhaqaalaha aad iyo aad u saameyn ugu yeelan doona caalamka arrintan coronaviruska waa tahay marka aan ka soo noqono qayb maxay ahayd wax saameynta guud ee wadamada caalamka uu ku yeeshtay oo sida waxa la yiraahdo caafimaadka iyo sidoo kale dhaqaalahaba wali way sii socotaa in markaasi cudurka uu sii kordho aan u soo laabana marka dadka Soomaaliyeed maadaama maanta aan dabcan ku hadlayno radio af Soomaali markaasi ku baxayo dadka Soomaalida sidaan ognahay aad ay u furbadan yihiin sida aad sheegtidna walibana marka loo soo laabto ama dadka degan gobolkan aniga hadda aan jooga ee Oslo inta badan dadka aad ay isugu dhow yihiin markay noqoto guryaha ay degan yihiin ama noloshaba marka saameynta marka lagu tilmaami karo marka laga soo tago waxyaalahan kale laga soo tago saameynta maxaad isleedahay dadka Soomaalida saameyn intee lag ayuu ku yeelan karaa iyadoo aad ogtahay isla dhexmaray in ay noqdeen dadka ugu badan ee cudurka laga helay ها ولا لو حويه أننا سومالي هدان هاي بقول يري توران تور أول بهران سعودي أننا أول عرفت دي بدنيد متقنا قبلهن قلنا عرفتنا متقنا جامعة قوانا وطن كله فينا وقران متقنا وصولنا من أفريقيا الصومالية ومتقنا عرفت لدومنا عرفت الليلائي هي متقنا حافظ كم فاروقة صلاح الجو الروائي من إنجليز كم هولن سكر فرات تلسكات صورهم بلا هذه دي بعد تبض بقى الصومالي ده يستوى integration dadka carruurta waxa la rabaa dadka faamilada carruurta waxay u baahan yihiin deganaansho saldhig meel la dhigay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dad degan oo kora oo waxbarashada mataqaana u degan tahay luqad u degan tahay intagtiya dhaqaale u degan yihiin guriga u degan yahay laakiin qof san walba sida mataqaana gararotadii kale san walba wadan ku hooyanaya 5 carruurna wato 7 luqad ku kala hadlaya waa la weeyay dalmarow taas marka inta badan waa waxyaalaha ma garanaysaa lagu eeday dadka Soomaalida markaan ka soo laabano dabcan Soomaalina si fiican waan soo garanayna markaan taa ka soo laabana hadda xaalad adag lagu jira xaaladda maanta la jooga markaan si toos ah u abaarno sidee ba dadka Soomaaliyeed aad isleedahay arrintan xaqiiqada ay u dareemi karaan waxa u dareemi karaan waxa weeye arrintan cudurkan waxa weeye waa cudur serious weeye
maaha arrin inta qol la galo dibnad la ciyaaro ama tur la ciyaaro maaha waxa weeye cudur la rabo in la fahmo oo loo hoggaansamo hay'adaha caafimaadku mataqaana tallaabooyinka ay soo jeedinayaan in lagu dhaqmo in la fahmo khatarta uu leeyahay waxa weeye mataqaana gacmaha badan mataqaana la dhaqo nadaafadda lagu dadaalo dadkoo laga fogaado mataqaana wacyigelin badan oo mataqaana loo kala la sameeyo iyo in ay mataqaana xataa dhinaca dhaqaalaha dib mar aan ugu noqdo maadaama shaqooyinka hadda Soomaalidu ay haystaan ay dirashada ka bixi doonaan oo dadka lagu jago naga riixan doonaan waa in hadda lagu fikiro alternative kale ay Soomaalidu ku fikiraan oo aysan ku fikirin 3 bilood oo soo socota oo muddo 4 bilood soo socota lagu fikiraan sanadaha soo socda 2 sano 3 sano oo long term perspective ay ku fikiraan taas baa laga rabaa Soomaalidu inay mataqaana ay u haytaan oo ay bulshada fadhiga ka kacaan laakiin hadda midda ugu horeysa waxa weeye oo laga rabo oo taagan in ay mataqaana iska warqabaan inay mataqaana is xiriiriyaan inay mataqaana Soomaalida mataqaana ay ku weyn tahay waxa laga rabaa mataqaana si dhow isku socdaan hadda waxa weeye kristansan waxaan sameynay WhatsApp local ilaa waxaan muqmanayaa 100 qof baa noogu jirta hadda hal family baa nooga dhacay shalay nooga dhacay cudurkaanu waxa weeye halkaas WhatsApp mataqaana ka warqabnaa ku xiriirinaa isku walaalaysanaa iskaga warqabnaa marka kristansan majority Soomaalidu kristansan wuxuu degan yahay Oslo marka Oslo waxa la in ka rabaa inaad is aruurisaan iska warqabtaan xaalad waxa lagu jira akiran oo khatar lagu jira waa tahay dalmar aad baad u mahadsan tahay dadka Soomaalida ah runtii markay noqoto luqadda aad bay ugu adag tahay inta badan waliba dadka familada ama hooyooyinka laakiin dadka dhalinyarada iyo caruurta ayaa inta badan luqadda si fiican u yaqaano macluumaadkana inta badan waxa ay ku baxaan sidaan ognahay luqadda Norwejiga maxaad iyadana kula talin lahayd marka dadka والله أنا هاد وحوي وحن سمينا كساسا وحن سمينا لغتنا هوية وكترتلي ما لغة كلا معناها لغة إنجليز كسوق عندي الوجام كترتل الصومالي معناها لغة بدن معناها أو كجد سنا سوق عندي محاضرات كم تقنا عن كورونا فيروس كا ومعناها هو جدنا الصومالي وأغنى هيدا بدن الصومالي عن فاهمين إن الوجام كا أما تقنا information كم تقنا إن وسارد عافمات وأي كتبين سو أنا فاهمين marka waxa laga rabaa anaga dhexdeena inaan is caawino oo dadkii mutafahmilada wacano oo mataqaana ururada mataqaana madaniga oo mataqaana Oslo ka jira ay isku dayaan inay faafiyaan luqad mataqaana af Soomaali oo mataqaana la turjubay oo cudurka hadlaysa dhibku leeyahay xataa masawirro leh qaabka looga hortagi karo iyo wixii la mid ah inay gaarsiiyaan shacabkeena degan Oslo majority waxa 17,000 تضيتهم كل لسيتهم كن بان قياسية إن دقنتها أصلا كليه مركا إن تدكاس إنتها لاج وحيو بهين وعيقلين بدن وحيو بهين متقانا كورقب بدن وحيو بهين متقانا سحرين بدن لكن وحوي واحل الجارسية تدكينا فرمش وحيو بهين أو سير وحكمين لها أو كان متقانا إن لو بيقولت لها waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dalmar ugu dambeyn waxaan ku siinayaa 1 daqiiqo maxaad kaga tagaysaa dadkaada oo tala tan dadka kaga tagay waxa weeye aad iyo aad baan horta wax maahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa in cudurkan adduunka ku dhaco xilli culus baa lagu jiray oo dhinaca dhaqaalaha iyo mataqaana siyaasad ahaanba uusan caalamku uusan deganayn ayaa lagu jiray marka uu yimid cudurkaano marka waxa weeye dhagax culus oo soo fuulay oo dib oo ayuu caalamku yahay laakiin shacabkii waxa uu sheegayaa Soomaalideena oo dhan gudahan in aan mataqaana xoojino Soomaalinimada xoojiyo mataqaana iska warqabka Soomaalida xoojiyo walaalnimada ay noqoto meel mataqaana isku soo heerno anigu gaar ahaan Oslo fartan ku soo taagay sabta waxa weeye adinku masaajid isku haysta waxay Chrome Files marka waxaan rabaa in ay noqoto Soomaalida Oslo degan meel goboladu ay ku hirtaan oo noqoto iftiina Soomaali israbta is xushmaysa is walaalaysata kor isku qaada isla hadasha noqoto meel dadqaana aan idin aragno meel aan soo boqono oo meel dadno jecel Soomaali walaalaha ay degan yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa dalmar sharwac oo jooga ama markaasi kamid ah xubnaha ka soo gala ee dhinaca golaha deegaanka iyo waliba mas'uuliyiinta caafimaadka dhinaca guddiga caafimaadka u qaabilsan ee magaalada Kristansan oo qadka telefoonka iigu waramay waxaan iminka idinku celinayaa qaybta farsamada iyo Jamaal ilo boqolaal horaha laga heshaatayo inta isbaqreen hadana kullu ma bil
labo bil iyo labo wiilow boqolaal horaa bilabay sheegtayo intay isbaqreen haddana kulumay bil iyo labo kulumay bil iyo labo